ikraan tahliil faarax waxay ku soo biirtay hay'adda markii aniga madaxda laga dhigay 2017kii ama 2017 April aniga ayaana soo qoray marka muddana xafiiskayga ayay attach ku hayna ka shaqeynaysay markii dambeetana department kaleeto oo human rights iyo genderka la yiraahdo ayaan u wareejiyo madax uga dhigay ayadoo meeshaas joogto oo ka shaqeysa xafiiskaas ayaan ka tagay hay'adda anigu waa gartay marka maxaad kala socotaan kiiskan hooyadeed baa hadlaysa eheladeedii baa hadlaya waa la yahay gabadha markii ugu dambeysana hay'adda nabad sugidda xarunteeda magaalada Muqdisho ee tagtay marka waxaad kala socotaan kiiskeeda wallahi kiiskeeda mugdi badan ayaa ku haraysan cid hadda specifically hadda cadeyn karta duruufteeda ama circumstanceeda xaaladeedu waxay tahay cid og lama arko laakiin waxaa la yiri all roads lead to sheeg maxaan ku dhahaa Roma haddii aan arkaan kor ka eegay oo aan hoos ka eegay waddo qaloocan iyo waddo toosan oo kasta oo la xiriirta tuhunka maqnaashaha gabadhan waxay ku arooraysaa hay'adda NISA waayo adduunka dembi marka uu ka dhaco dembigan oo kale waxa la dhahaa complex crime waa dembi wajiye fara badan leh oo meelo fara badan laga eegi karo haddii aysan jirin marka qof dembiga qiranaya ama lagu haayo ku cad yahay dabcan waxa abuurmaya shakiyo suspects waxa la yiraahdo meesha dembigu ka dhacay iyo qofka meesha ugu dambeysay iyo cidda ay la shaqeynaysay iyo meesha ay ku dambeyn kartay oo horta shakiga inta badan dabcan dad fara badan anigu waa wareystay oo kiiskan si qaas ayaan u jaba joogay sida muuqata hadda gabadh waxay deganeeday waa gabar waxay ahaaday maxaan ku dhahaa careful oo taxadir badan oo qiimo socda oo wacyi amni leh meel ammaan ah oo hay'adda physically iyo electronically laga ilaalin waa dhex deganeeday gabadhu marka hadda meesha dhex deganeeday oo ama ay u dhaweeday waxay ahayd hay'adda nabad sugidda dhaqdhaqaaq kasta iyo cid kastoo meesha soo gelaysa iyo cid kastoo ka soo baxaysana ama si toos ah loo arki karaa ama CCTV camera ayaa laga heli karaa dabcan gabadhuna waxay ahaaday howlwadeenada hay'adda ama saraakiisha hay'adda annaga marka waxaan isleenahay 3-4 qolo ayaa magaaladan dhibaato ka geysan karta ama force jira shabaab dabeeciin shabaabkuna dadka ma afduubto wixii hadda galana ma la waayo ama raadkooda lama waaye saraakiisha hay'adda oo kale markasta waa dilaan toos u dilaan waxa jiri kareeto aana qabiil gabadhaasna sabab hadda gabar ay ahayd aana qabiil loo dilo ma jirin waxa kale waxay dhici kartaa criminals niman tuug ah ama xoolo ka rabi kara ama wax kale taa ma jiraan xoog kale waa dawladda dabcan marka waxa laga rabaa gabadhan nolol iyo geeri meel inay ku sheegto hay'addii amniga qaranka loogu talagalo in badbaadada ummadda Soomaaliyeed ka shaqeyso inay hadda dabageli weyso ama warcad ka soo saari weyso maqnaashaha gabadhan waxay nolol iyo geeri ku dambeysana hadii tuhun weyn ayaa jira ama negligence ayaa jira annagu hadda marka kama hor dhacayno oo malihin sheeg haddaan ognahay gabadha nolol iyo geeri cid hays annagaaba sheegi lahayn laakiin tuhun fara badan in kayskan hay'adda nabad sugidda ay ku lug leedahay dareen oo xoogan ayaa jira gabadhan awood intee leeg ay ku lahayd hay'adda wallahi gabadhan wax awooda ma lahayn laakiin sarkaal oo insider ah oo maybe arrimo xasaasiya iyo xog xasaasiya oo sensitive og ay noqon kartaa waxa dhici karta in sheegan waxay og tahay ay dhiban u tahay maybe hadday suurtagal tahay evidences ama waxay og tahay oo ayoo la tirtiraay ayaa jira qayb ka tahay dadka qaar waxay ugu dhaheen waxay haystaa registrationkii ciidamada Eritrea loo qaaday gabadhan waxaa leeyahay database-ka ama xogta ciidanka meeshaas aaday haysay qaarkood kale meelo kaleeto oo ama maxaan ku dhahaa arrimo kaleeto xasaasi oo hadeertaan dhici karto anytime in ay wuxuu soo baxaan ayay marqaati ka noqon kartay waxyaabo badan iska dhici kara laakiin annagu ilaa hadda malaa'ig ma nihin uma ogin waxaasoo dhan baaritaan ay kasoo bixi doonaan waxaana la yiri sheegan runta waa hurdaahe ma dhimato one dayna waa soo bixi doontaa haddii hadda ay soo bixin maalmaha kamid ay runta soo bixi doontaa gabadhu ilaa hadda waa maqan tahay dawladdu haddii si sharci lagu haysto waa la cadeyn lahaa ama xarumaha maxkamadaha hayn lahaa ama xarumaha dadka lagu xiraa lagu hayn lahaa waa la ogaan lahaa ama case active oo la yaqaan lagu haysan lahaa horta aniga shakhsiyan ilaahay ha rumeeyo in gabadhu nooshahay saasaan rajaynaynaa laakiin kuma calool fiyooba inay nooshahay